dalka Portugal ayaa waxaa la sheegay inuu soo saarayo lacag uu ku sawiran yahay Ronaldo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Anigoo walaalkiina Bashka Bashiir oo idin leh lagu soo dhawaado YouTube channelkayga. haddii aad tahay markii kugu horeysa aan soo booqato fadlan ha ilowin inaad subscribe bac ku siis video la garay aad u mahadsantahay. sidoo kale maanta waxaan ka hadlaynaa CR7. hadda kadib waxaan isku dayi doonaa insha Allah barnaamijka ciyaaraha si daily ah inaan ugu soo hadalno waxyaabaha ku saabsan sportiska, especially gaar ahaan the legend CR7. so Ronaldo videoyo hore ayaan ka sameeyay, dabcan waa la socotaan internetka waxa uu ka sameynayo, especially maalmahan uu kusoo biiray YouTube-ka. video hore waan ku sheegay ciyaartii ay la ciyaarayeen Croatia wuxuu rabay inuu dhaliyo hal gool si uu u gaaro 900 oo gool. so dabcan waxa lagu yaqaana wuu dhaliyay goolkaas. markaan waxa u baahanahay waxay tahay 100 gool. almost 100 goolna waa bilaabat 99 gool ayaa ugu hartay inuu gaaro 1000 gool. 1000 gool waa intee? waa qofka kaliya oo hadda oo Banooni ciyaaro oo u dhow even xitaa 901 gool wax dhaliya ciyaaryahan ma jiro. qofka ugu soo dhow waa ninkay aad ku xifaaltamaan Lionel Messi, wuxuu leeyahay 838 gool. waxaa laga sareeyaa adi ilaa ay ku dhawaad 64 gool. so marka intaas ugu soo tagno adi Messi almost hadda maalmahan xili mar walba nin sida Ronaldo kala goolal u dhaliya ma ahan. ninka Ronaldo marka waxa ugu fadhinaa maalmaha soo socda seasonkan at least xitaa waa inuu 50 gool dhaliyaa. seasonka dambana 50 gool oo dhiman si uu dhameystiro. haddii uu san wax injury ah soo gaarin dabcan wuu dhalin doonaa. marka waa kaas. teeda kale waxyaabaha uu maalin walba record cusub u sameeyaa ninkaas. wuxuu gaaray ninkii ugu horeeyay oo social media marka la isku wada daro gaara 1 billion million ma aha 1 billion. qof kale asiga ahayn ma jiro. qaybta ugu badan oo social media waxay aad dadka ku xiran waxay yihiin Instagramka bartiisa 630 iyo dheeraad milyan u haystaa. YouTube-ka hadda maalmahan socdo 61 milyan u maraya. hal bil lagu sameeyay. hal bil kaliya waxa lagu gaaray 61 milyan. haddii hal bil u qaybiso 61 milyan waxay la mid tahay maalin walba in 2 milyan oo qof ay ku soo biirayso. صدق. so hadda 1 bilyan uu gaaray social media sadha marka la isku wada daro. caalamka population-ka wadanka ugu badanna adi waxa la yiraahdaa China. India China way isku dhow yihiin, mar waxa la yiraahdaa Hindiya la hormariyaa. adi wax yar ay kala sareeyaan. wax saas ma kala badna. marka China population-ka dadkiisa dhan waxa weeye 1.4 billion waay. Ronaldo-na 1 bilyan uu gaaray. bishaan hadduu saan ku sii wada maalmaha soo socdo caalamka wadanka ugu population-ka badan ayuu record-kooda jibinaya. waa hal shakhsi kaliya wax saameyntaas intaas la eg sameynayo. marka intaas kala soo tagna dalka Portugal ayaa waxaa la sheegay inuu soo saarayo lacag uu ku sawiran yahay Ronaldo. dalkiisa Portugiiska ayaa waxaa la sheegay inuu soo saari doono lacag uu ku sawiran yahay Ronaldo 7 euro, maadaama uu favorite numberkiisu 7 yahay. CR7 7 euro al soo saaraya. reer Europe lacagtaas markay idin soo gaarto ma soo gaarsiiya. so almost horta macquul warkaan ilaa hadda horta xaqiiq ma ahan. ilaa hadda yacni waa dadka say dhahayaan hordhac waaye. dabcan wayna dhici kartaa dalkiisa garoon oo international oo laga soo degayaba Cristiano Ronaldo International Airport laga dhigay oo meeshii uu magaaladiisa oo Madeira uu ka imaaday. so in lacagtoodan ay ku sawiraan waxba lama aha. waayo ka horba Ronaldo kadib la bartay dalkiisa Portugiiska markay noqoto xagga kubadda. inta ka hor wax koob ay ku guuleysteen ma jirto. yacni sidoo kale laacibka hore oo ka horeeyay way jiraan 2 laacib. laakiin markuu Ronaldo imaaday ayuuna baray. hadda hadduu ka tagay oo fariistana khalaas oo dhamaatay. even xitaa qarankiisa marka loo fiiriyo qaramada oo barta Instagram-ka ku leh
wuxuu ka mid yahay damada ugu sareeya marka loo fiiriyo oo dadka ku xiran bartooda Instagram-ka. qaramada kale dhan uu ka hooseeya. sidoo kale naadigiisa Al Nassr maalintuu tagayay milyan 2 milyan waxaas haystaan. haddana Real Madrid naadiyaashiis inay soo qabtaan ay u tartamayaan. Arsenal iyo Inter Milan iyo naadiyaasha waaweyn aad taqaanay mar hore ay dhaaftay. naadiga Al Nassr Saudi maalintuu Ronaldo imaadayna waxba lama yaqaanin. haddana almost waxay ku socdaan inay gaaraan 30 milyan. Instagram-ka naadi kale oo u soo dhow ma jirto naadiyaasha dhamaan. Okay, ninkan rikoorkiisa halkaasi kaliya kuma eko. wuxuu sameeyay shalay horta wuxuu dabaaldegayay taageerayaasha Al Nassr, yani waxay u sameeyeen waxyaabo mufaaja'a ah. yani 900 oo gool uu gaaray intay maaliyad funaanad goat uu soo qoreen ay garoonka dhan way soo buuxiyeen. adi waxyaabo oo yani oo shucuurtooda ay ku qiyaasayaan inay say ugu faraxsan yihiin laacibkooda inuu gaaray 900 oo gool iyo misana iyo waxyaabo kale inuu soo wada. saas darteeda yani dabaaldeg weyn ay u sameeyaan. sidoo kale markay noqoto xagga Sacuudiga, Al Nassr hadda wuxuu ku jiraa Ronaldo ninka labaad ee ugu goolasha badan. almost hadda wuxuu ku dhow yahay 100 gool inuu dhaliyo. 68 gool ayuu haystaa. ninka naadiga dhan ugu goolasha badan meequu haystaa mataqaana? wuxuu haystaa 120 gool. rikood kale waay oo loo baahan yahay Ronaldo mar dhow inuu jibin doono. saa wada ognahay naadigiisa hore ee Real Madrid ninka ugu goolasha badan waa 400 iyo maazaad ayuu skorka oo naadiga ugu goolasha badan yahay. ninka ku soo xigay oo muddo iska haystay wuxuu ahaa Raul Gonzalez. Raul skorkiisa intuu jibiyay ayuu skor kale oo new ah soo xirtay. Sacuudiga la imaan. Sacuudigana hadda wuxuu rabaa inuu skorkaas jibiyo 120 gool. almost 68 haduu mariyo half almost wuu soo dhaafay. wax yar oo haran season-kana hadda loo bilaabay. waa ciyaar saddexaad kaliya la ciyaaray. inuu jibinayana haduu sii joogo shaki kuma jiro. okay, haduu skorkaas jibiyo wuxuu noqon doonaa amaba 100 gool amaba uu gaaro 100 gool ninka ugu horeeyay ee 5 league ka soo ciyaaray oo 100 gool iyo above dhalay. naadi kasta u soo dheela 100 gool iyo above ayuu dhalay. qarankiisa horta 100 gool iyo above uu haystaa. waa ninka 100 gool almost waa dhaaf 130 wax la jiro haystaa. kasoo taga naadiga Real Madrid 400 uu haystaa 100 gool meeshaas ku dhaafay. waa laba Soma. saddex naadigiisa hore ee Juventus asigana 100 gool iyo dheeraad uu haystaa. Manchester United ay loobin ayadana 100 gool iyo dheeraad uu soo dhalay. hadda la joogo Al Nassr 68 gool ayuu marayaa. 100 goolna waxa ugu dhiman 32 gool. inuu dhalinayna dabcan de Ronaldo lama dhayalsan karo. markii si dambeysay daadiisa sii weynaatana dadaaladiisa sii kordha. gool dhalintiisana way sii badataa. markuu gaaray 30 ku xal lahaa qalaas oo dhamaatay. 30 markuu gaaray intuu 30 gaarin goolasha uu dhaliyay isku mid ah. waxaan jeclaystay update-kaas oo ku saabsan CR7 inaan idin la wadaago taageerayaasha CR7 yani commentiga ay idinka arka inaa ku badintiin kanaalkan. waxaan ku qiyaasay muuqaalada uga hadlayayba markii waxa hawadaas ay geliseen. kan waxaan rajeynayaa sidaa iyo si ka daran inaa u gelisaa sportiska haddii aan nahay dhalinyarta aad u xiiseynaa. bishali markay noqotona CR7 waa ninka yani kubad markii aan maqashaba waa ninka kaliya ee madaxaada ku soo dhacayo. marka I hope inaa ka heshay muuqaalkan. waxaan rajeynayaa asxaabta kale xiiseynaysa inaad la shiisay kale. sidoo kale hambaliya isoo qoro marka sii dambaysa anigan aan muuqaal soo duubo. subscribe-keen maalmahan kor u socda. target-keeni ahaa inaan bishan kaliya aan gaarno 30,000 oo subscribe. insha Allah wax yar ka dhiman. almost hadda 52,000 aan marayna. inta kalena way imaanaysaa. target-keena 100,000 way qoran tahay. marka adigana ha iloobin inaad ka qayb qaadato horumarinta kanaalkeena. like-taada, share-ta, commentiga waa inoo muhiim. inta kulmi doona muuqaalka xiga waxay leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. peace and love. nabada ka shaqeynaa.